بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دواد حلقة دنيا أفراد بوجا ميجا بوك of modern English grammar iyo macallin Nuur Ismaaciil Xirsi oo idinka sii wada halkaas. waxa uu ka bilaabmay xalqadeena afraad bogga 25 bilowgiisa. waxaynu ku jiray markaas wixii la oran jiray macnaha plural of nouns, jamaca magacyada ayaynu ku jirnay. waaye marka waxaan maraynaa hadda irregular pluralis, jamacyada aan caadiga ahayn ee isbedelka buuxa ku dhaco. irregular pluralis, jamacyada aan caadiga ahayn. wuxuu yidhi some nouns, magacyada qaarkood, some nouns, magacyada qaarkood, some nouns, magacyada qaarkood ayaa form ku qaabeeya their pluralis jamacyadooda by changes isbedelo other than halkii ay markaa ka noqon lahaayeen other than halkii ay ka noqon lahaayeen adding inaynu ku darno s or es, s ama es. baada kuwan u fiirsa markaas. examples waa tusaalooyin. singular waa mufrad, plural waa jamac. child waa diflun, macnaha waa ilme. children waa caruur. august waa dibi, oxen waa dibi. foot waxa weeyaan qadam ama yani cag. feedna waa cago. tooth waa ilig. teethna waa ilko. okay, louse waa bahashan injirta la yidhaahdo. lice-na waa injirtii faraha badnayd. mouse waa bahashan walada la yidhaahdo. mice-na waa iyadoo jamaca. man waa nin. min waa rag. woman waa gabadh. women waa dumar. brother waa walaalka. brethren waxa weeyaan macnaha walaalo fara badan oo inama ah, laakiin all form weeyaan. brothers baa la yidhaahdaa oo s baa lagu daraa imika. okay, goose waa bahalkan digirinka la yidhaahdo. geesna waa jamaciisii. okay, waayahay. foreign words, ereya ajnabiya. foreign words, ereya ajnabiya. and words iyo ereyo of foreign origin, asalkiisii laga soo xijaabtay ama laga soo ijaartay, yani dad ajnabiya waan ingiriis ahayn ayaa form waxay ku qaabeeyaan pluralis jamacyada in different ways, dariiqooyin kala duwan. sida tusaalehaan kuwan soo socda. singular waa mufrad. analysis macnaha waa yani lafagur. analysisna waa jamaceedii. basis waa salka ama basis salal. bacillus waxa weeyaan bahashan macnaha bacillida la yidhaahdo ee bacteriada ah. jamaceedina wuxuu noqonayaa bacilli. bacterium waa xabadda bacteriada ah. bacteriana waxa weeyaan macnaha jamaceedii. okay, datum waa xogta ama daatada. markay jamacta waa data. dictum macnaha waa yeedhis oo kale dhigta. erratum waa qalad. erratum hal qalad. errata waa qalada fara badan. formula waa qaacido. formulae ama formulas labadaba. focus yani waa diirad saar. focus waxa weyn diirad saar. okay, foci ama focuses baa la odhan karaa. locus iyo loci. okay, locus baalkan ayaxa la yidhahdo. lusai ama lusai baa la odhanaya, waa jamaceedii. medium waa hab ama waa dariiqo ama wasiila. median waxa weyn yani wasaa'il iclaam oo dhan ayaa la odhanayaa. nucleus waa bu'da shaygaas, yani ama atom ha ahaado ama wuxuu doona ha ahaado ayaa nucleus odhanayaa. nucleina waxa weeyaan macnaha bu'a fara badan. phenomenon waa ifafaale. phenomenon waa ifafaale fara badan. syllabus waa muqarar. syllabi waa muqarrar fara badan. thesis waa buugga jaamacadda lagaga baxo ee markaad jaamacadda dhammaysaad qorayso. thesisna waa iyagoo badan. tableau waa sabuurada faransiiska laga soo qaatay. tableau waxa weeyaan markaa iyaduna yani sabuurada fara badan. okay, waayahay. compound nouns, magacyo lamaana ah. compound nouns, magacyo lamaana ah ayaa form waxay ku qaabeynayaan pluralis jamacyada. waxay ku qaabeynayaan siday ku qaabeynayaan by adding inaynu ku darno s inaynu ku darno. halkaynu ku daraynaa markaas to the main word, ereyga muhiimka ah. or ama by making inaynu ka dhigno some change, ama aynu samayno some change waxoogaa isbedela in the main word oo ku dhacaya ereyga weyn ee waafiga ah ama muhiimka ah. okay, tusaale ahaan maxaa ka mid ah son in law waa inankaad sodoga u tahay. sons in law inama badan oo sodog tahay. daughter in law waa inantaad sodoga u tahay. daughters in law yani hablo badan oo sodog tahay. commander in chief waa taliyaha guud ee ciidamada. commanders in chief taliyaasha guud. passerby waa qofka meesha maraya ama ku dhaafaya. passersbyna waa dad badan oo ku dhaafaya. maid servant waa gabadh yani macnaha khaadimada ama shaqaalaha.
maid servants وخادمين فربضان man of war ونين يعني دجال وديار جروبي okay man of war نا ورك بدن ودجال وديار جروبي man eater وددقل أما تدعون man eaters نوحان تدعون عيال okay man hour معناه وقفك يعني ساعة دولية هاي okay man hours وعين ساعة مركا قفك بني آدم كلية ويهتين كقدبنا تاس some compound nouns مقعية compound أي form يقلفت وضوحي قابين يعني plural جماعية ذا by making إنه كدقنا plural جماعي إنه كدقنا both لبذا the parts قيبها of the compound noun مقع لمعناه إنه لبذا بجمعينه أي إنه صورة قلي يكون وقلي بلا داينو يقنا مركات السؤالها ومحوين يلي مركز woman servant وقبر يعني شغالة women servants قبل بدنو شغالة man servant وخادم ننأ men servants وخادمين أما شغالة فربدنو رجع woman student وقبر أرضية women students يعني دمر فربدنو أرضية usage واستعمال كلا استعمال أيو of some special nouns مقعية جارة a singular هذا لو استعمال مثلا كون صوص لبلو فيرسو ومفردهان هي كل ذو واحد دليل الشيب لح وجورعي جورج نكرا كود وحو قبطي a big salmon حبات كلون كالسالمون كلا يلاحظو ووي his only means وسيلة دي سكالية أما طريق دي سكالية of livelihood نرال مالماتكو is selling flowers وأبحا ويبيو an enemy aircraft ديارتكو عدو ليه هي was shot down يالا سوري دي وكا يقو جمع بلو فيرساتنا as plural يقو جمع لو استعمال أيو there الواحد جرى many sheep إذا فربضان in the shed حرادة they caught واحد قبتين many salmon كلون فربضان last week يهوري what are the means ومحي وسائلك of transport قاديدك in our country دالكين all of our aircraft دمان ديارة يجي have returned ويصول لابتين safely يدون أسلو قدرين وحين لقى بدلين أيو جمع يهي okay other examples تسألون كالكوا الله مدى محاكم ده دير بهاشن عوش الله يلاحظو سيريس وتحني سيريس وحبين تحني سوين والدوفارك هيرنا وحلا بهال كان بكيلا أما أرنبك waxay iyaguna jira kuwan soo socda some nouns magacyada qaarkood ay used only waxaan baa loo isticmaalaa markasta as plural jamac ahaan examples salaan maxaa kamida the staff shaqaaluhu are working waxay shaqeynayaan over time waqti dheeraada the gentry of the town ana gaadhkii magaalada the gentry of the town gaadhkii magaalada were present way joogeen at the function house at the function were present at the function yani gaadhkii ku jireen shaqaday ku jireen other examples waxa kamida kuwan oo kale poultry bahash la yiraahdo poultry waa digaaga marka la dilaacinayo vermin yani fax oo kale marka la sameeynayo ama yani roodhida khamir la sameeynayo kala vermin wayahay some nouns magacyada qaar koodna are in plural form wa jamacun only markasta and are used only waxan bana lagu isticmaalayaa in the plural sense habka ama macnaha jamacan some nouns magacyada qaar kood are waxa weeye in plural form hab jamaca only oo kaliya and are used waxaan waajibayn loo isticmaalo only in plural sense macna jamacahum examples waxa kamid tusaalahan this pair of trousers ana surwaalkani does not fit me imaleka trouser marka waxa loo jeedaa laga cabiray labada lugood ee surwaalka okay wuxuu ku yiri what are maxay where are my trousers surwaalkaygi scissors maqasyadu are used for waxa loo isticmaalaa cutting cloth in marada lagu jaro many thanks for your gift many thanks يعني mahad badan baan kaaga keenaya for your gift hadiyadaadi are these kuwan ma waxa weey your spectacles muraayadaha labadii muraayadood inda I found waxaan ka helay a pair of spectacles muraayado yani in the library maktabada okay other examples waxa kamid ah hadiya jeer jamc loo isticmaalayo okay goods badaacad riches waa xoolo yani qaniimad galos waxaan 40 tiir lagu xiro qofka marka la daldalayo laakiin marna waxa la yiraahdaa afarqaadka faraska almis waa sadaqada bilowsna yani waxa barkimoyn oo kale ayaa loo bilows wayahay goods waa badaacad riches waa xoolo macna qasdan khazaain galos waa 40 tiir yani qofka la daldalayo almis waa sadaqo bilowsna yani waa deeqo ka bilows kolkii hore waan qaldamay sooray bilows waxa iyaduna jirta some nouns magacyada qaar kood are plural waa jama in form xagga shakliga but are always laakiin markasta used waxa loo isticmaalaa as singular mufrad
these include kuwa waxa ku jira names magacyada of subjects mawaadka ama maadooyinka in artist ku jira artistka sida taariikhda iyo juqraafiga iyo wixii la halmaala and sciences iyo science-yada sida physics iyo chemistry iyo mesela biology iyo waxyaabaha noocaas examples waa tusaale here is the news waa kan warkii bal waxaan ku here is the news warkii waa kan read by George oo inoo akhriyo George physics maadada physicsku is a difficult subject waa maada adag measles jadeecadu is a troublesome disease or cudur mushkilad badan the first innings of the match is over the first innings halfkii hore of the match yani ciyaartu is over u dhamaaday the house gurigi is in shambles uu kala daatay macna burbur buu noqday the house gurigi is in shambles waa uu kala daato yani xabad buu go'ay laban kaliya marka shambles macnaheedu waxa in reunions fi damaar ama yani burbur buuxa ku dhacay other examples waxa kamida economics oo dhaqaalaha mathematics cilmiga xisaabta mambis oo qorbararka oo kale qorto ku barto cudur noocaasa ee taray wax la mid ah mesela pains madaha oo kale sida trouble mushkilada oo kale ama effort dadaalka okay usually alaaba takes waxa qaataan a plural verb macna ficil jamca pains macna xumada oo kale markaynu ka hadlayno okay and wuxuu no yani pains markaynu ka hadlayno oo trouble oo kale ah ama effort dadaal oo kale usually alaaba takes wuxuu qaadanaya a plural verb ficil jamca examples waa tusaale no pains were spared by him no pains ma jira xanuun ama xumad were spared by him isaga uu hadho loo reebay no great pains yani ma jiraan dadaal badan oo are necessary daruuri ku ah to learn sawaaxili ina sawaaxiliga barato kalmada la yiraahdo yani pains waxay la macno tahay trouble ama waxay la macno tahay effort okay waayahay baladaynu eegno markaas use of fruit fish and hair waxay iyagana yani loo isticmaali karaa sometimes yani fruit ka oo kale ama fawaakih khudradda waxa la yiraahdo fish kalluunka and hair iyo timaha marka la isticmaalayo jamac ahaan baa loo isticmaalaya iyaga laftooda balada u fiirsa markaas more people dad fara badan ayaa eat waxa cunaan fruit fawaakih these days waqtiyadan dan marka loo eego before sida jiri jirtay barigii hore marka fruit kalmada la yiraahdo oo fawaakih is used here halkan waxa loo isticmaalay as a collective noun magac jamaaciya ama magac yani ismul wadaag oo cidi wadaagayso laakiin there are not many fruits yani fruit badan kuma yaalo available oo laga helay in the market saribada here fruits kalmada la yiraahdo shows waxay tusaysaa variety mutanawicaad kala duwan fish kalluunka markaynu as a whole u eegayno waa yani wuxuu noqonayaa collective noun fish living water kalluunku biyaha ayuu ku nool yahay used waxa loo isticmaalaa as a collective noun okay and as a plural jamac ahaan laakiin hadii la yiraahdo there are different kinds waxa jira noocyo badan oo kala duwan oo fishes oo kalluun in the sea badda used waxa loo isticmaalay markan for variety of fishes mutanawicaad fara badan ama noocyo kala duwan oo fara badan oo kalluuna laakiin fish kalluunku is good as food cuntadu ku wanaagsan yahay used waxa loo isticmaalay as a material noun shaygii loo baahnaa la cunayay ama wax laga sameeyay okay hair kalmada la yiraahdo oo timaa his hair is dark and shiny his hair timihiisu is dark waa mugdi oo qaar madow and shiny oo iftiimaya hair kalmada la yiraahdo used waxa loo isticmaalay as a collective noun yani magac wadaaga laakiin he has only a few hairs left on his head hadan ku yiraahdo he has only kaliya waxa ku yaala a few hairs timan yaro tirsan on his head madaxiisa here hair kalmada la yiraahdo used waxa loo isticmaalay as a common yani magac jamaca ama countable noun magac tirsamaya halka hadeen kuwa kaga tagno waxaan u gudbinaa genderka waxa la yiraahdo gender waxa in jinsiga lab iyo dhadig wax kasta lab iyo dhadig bay leeyihiin marka gender oo kun gaaladu hadii jeer markay yani seminaarada inoo qabanayaan waxay nagu waaleen gender balance waxa la yiraahdo oo isu dheelitirka yani lab iyo dhadiga oo gabadhiina in shaqada la qoro raggiina shaqada la qoro sidaas oo kale ay hadii jeer dhiirigeliyaan marka gender macnaheedu waxa weeyaan sex macnaheedu waxa weeyaan jinsi macnaheedu waxa weeyaan lab iyo dhadig gender kalmada la indicates waxay tusaysaa sex jinsiga of objects ashiyada iyo dadka bay nature abuurta noun magaca markaas that refers macnaha tilmaamaya to a male qof male ama lab ah is said to be waxa la odhanayaa of masculine gender inuu yahay jinsi lab the noun magaca that refers to tilmaamaya a female yani qof dhadig is said waxa la odhanayaa ma xayawaan dhadig
is said to be waxa la oranaya lagu sheegaya of the feminine gender ayaa la oranaya feminine gender. Okay, examples waa tusaalooyin. Masculine waa yani lab, feminine waa dhadig, man waa nin, woman waa gabadh, boy waa wiil, girl waa inan, brother waa walaalka, sisterna waa walaasha. Okay, dog waa a yani a-ga lab, bitchna waa ayed, bull waa dibiga, cowna waa sac. Darar waxaa jira markaas some nouns magacyo which can refer to tilmaami kara either midkood a male lab or ama female dhadig. Such nouns magacyada noocaasa are said to have waxa la oranayaa inay yeelanayaan a common gender jinsi caam oo ka dhaxeeya labadaba. Maxaa kamid ah markaas? Child waa diflun, student waa arday ama ardayd, friend waa saaxiib ama saaxiibad, servant waa khaadim ama khaadimad, parent waa waalid yani ama waalidad. Okay, artist waa qofka farshaxanka ku doonaha ahaado, cousin waa inaadeerka ama inaabtiga, baby waa sabiga, person waa qof, president waa madaxweyne labadaba uu noqon karaa, ministry waa wasaarad, member waa xubin, idiotna waa qofka liita, idiot baa la oranaya. Okay, we can use waxaan isticmaali karnaa the pronoun he magacyaalka he la yiraahdo or she ayaynu isticmaali karnaa for these nouns magacyadan depending upon iyagoo ku xidhan whether bal haddii they are male ay lab yihiin or ama female ay dhadig yihiin. Note waa mulaaxad ama fiiro gaara. We often use waxaan ku isticmaalnaa the pronoun it, pronounka it baynu ku isticmaalaynaa for child or baby haddii child ama baby wixii aan caqli lahayn ama liqayri caaqila waayahay. Examples waa tusaale the child ama the baby is looking pretty, ilmi yara wuxuu u egyahay mid qurux badan, it's wearing wuxuu xidhan yahay a red dress cas. waxaa jira markaas some nouns magacyada qaarkood that refer oo tilmaamaya ama tixraacaya to objects ashyaa. Okay, that are neither male oo lab ahayn nor female dhadigna ahayn are said to have waxa la oranayaa inay yeelanayaan neuter gender mid dhexdhexaad oo dhinacna ma raacsanayn. waa ashyaadoo kale sida pencil qalin pencil, books bugaagta, house iskuulyaa, shoes kabaha, tree waa dhirta, plant waa wixii la beero, water waa biyo, oxygen waa oxygeenta la neefsado, gold waa dahabka. Feminine gender formation brother wuxuu ku feminine gender formation waa qaabaynta ama sida loo sameeyo feminine genderka sida loo sameeynaya. Number 1 by using inagoo isticmaalayna an altogether different word gabi ahaan beere kii labka ka duwan sida tusaale ahaan boy inan, girl inan. Husband waa yani zawj ama nin xaas leh, wife waa gabar xaas leh, father waa aabaha, mother hooyada, baba waa aabaha oo carruurtu ay isticmaasho, mamana waa hooyada, uncle waa adeerka ama abtiga, auntina waa eedada ama habaryarka, son waa wiilka, daughter waxaan inanta, nephew waa inankaada abtiga u tahay, niece-na gabadhaada abtiga u tahay, gentleman waa mudane ama sir mudane, waxa ka soo horjeeda lady ama madam. Okay, duke waa boqorada wakiilka ay dhigatay masalan gobolada Ingiriiska oo kale, duchess-na waa gabadha ay wakiilka uga boqorada, bachelor waxay masalan oo kale doob marka la leeyahay, maidna yani inanta yani sidaas oo kale ayaa la oranayaa. Okay, king waa boqor, queen waa boqorad, lord waa yani nin lord oo sare, ladyna waa sayida, monk ama friar oo ah wadaadka saahidee kristaanka deemanay saahidina kiniisadaha iska jooga. waxa ka soo horjeeda nun oo gabadha yani saahidee tiri ragga waan iska daynaya ma guursan waxyaabo noocaas. dog waa ayga, bitchna waa ayed, cock waa diig, hen waa digaagad, colt villy. Okay, colt villy waa xayawaan nooc ka mid ah. Okay, drone iyo bee. drone waa shinida lab, bee-na waa shinidii dhadigeed, buck waa macna biciidka ama garanuugta, doona waxa weeyaan doona yani garanuugta, horse waa faraska, mare waa geenyada, stag iyo hind waa laba nooc ka mid ah xayawaanka oo lab iyo dhadiga, fox waa dacawo, vixen dacaw yani vixen, fox waa dacaw, vixen waa dacwooyin, earl iyo countess. countess yani waa darajo macnaha xagga Ingiriiska ka jirta. Okay, oo lab iyo dhadiga, gander baalka digriinka oo lab weeye, goose-na waa digriinka oo dhadig, drake shimbirbadeeda oo lab, duck-na waa shimbirbadeeda oo dhadig. taas waa marka koowaad erey ka duwan baa la isticmaalay. marna wuxuu ku yidhi by adding inaynu ku biirno double s oo kale ama e double s inaynu ku biirno with
or ama without dropping inagoon ka tuurayn a vowel shaqal of the masculine-ka ku jira. Masculine-ku waa labkii ku jira. Masalan masculine iyo feminine bal fiirso. Prince waxa weeyaan yani amiir ama dhaxal suge. Princess-na waa amiirad. Poet waa shaacir nin gabayaya. Poetess-na waa shaacirad. Priest waxa weeyaan wadaad yani wadaadka kiniisadda jooga. Priestess waxa weeyaan wadaadad. God waa sanam yani wax la caabudo kullu ma yucbad wax kastoo la caabudo yani ilaah laga dhigto weeye. Goddess-na waa sanamka dhadig. Okay, prophet waa yani faaliye ama nabi oo kale weeyaan. Prophet labada macna buu yeelataa laakiin hadda wuxuu jeedaa faaliye. Prophetess waa gabadh faaliye. Host waa gabadha waxa ninka martida loo yahay ama dalka martida loo yahay. Hostessna waa yani gabadha martida loo yahay. Heir waa waariska qofka wax dhaxlaya nin ah. Heiressna waa gabadha wax dhaxlaysa. Shepherd waa adijir. Shepherdessna waa adijirad. Author waa qoraa. Authoress waxaan qoraayad. Patron waa qofka xafiis ama lacag haya. Patroness waa gabadha lacagta haysata. Lion waa libaax. Lioness-na waxaan gooshi. Lioness-na waa gooshi ayaa la oranayaa. Lioness waxaan gooshi. Okay, masculine iyo feminine. Actor waa jilaaga. Actress waa jilaayad. Hunter waa ugaarsade. Huntress-na waa ugaarsade. Instructor waa macalinka. Instructress waxaan macalimad ama yani mid wax uga tusaaleynaysa. Negro waa qofka madow ee ninka ah. Negress-na waa gabadh madow. Emperor waa imperator yani boqor sare. Empress-na waa boqorad. Tempter qofka wax dadka ku yani ku dhiirigeliya. Temptress-na waa qof dhiirigeliyo dumara. Tiger waa shabeelka. Tigress-na waa shabeelad. Waiter waa mudalab. Waitress mudalabad. Master waa sayid. Mistress-na waa sayida. Okay, traitor waa khaain. Traitress-na waa khaaimad. Okay, way wuxuu some nouns magaalada qaarkood half waxay yeelan karaan special ending dhammaad gaar ah yeelan karaan masculine labka oo ama feminine gender haday dhadig yihiin. Maxaa kamid ah kuwa mesela kale hero waa geesiga ninka heroine waa geesiyad. Okay, viceroy macnaheedu waa ergeyga boqorku uu dirtay Ingiriiska oo kale Hindiya uga wakiil noqon jiray bari. Viceroy-na wuxuu macnaheedu gabadha boqorada u dirato. Widower waa qofka gabadhu ka dhimatay ninka. Widowna waa gabadha armalka. Okay, masculine iyo feminine waa executor oo qofka wax fulinaya. Executrix waxay gabadha wax fulinaysa. Bridegroom waa arooska ninka ah. Bride-na waa aroosada. Okay, being waxay macnaheedu being bo waa waxyar yani bo waa waxyar. Belana yani waa waxyar oo markaas ayay noqonaysaa. Labada erey waa Francis. Labada erey bo iyo bele waa Francis. way waxa kale oo iyagana lagu sameeyaa by adding inaad ku darto prefix horgale. By adding inaad ku biirso prefix horgale ama by change inaad bedesho of suffix wixii dabada ka raacay magaca. Maxaa kamid marka he goat waa orga. She goatna waa ri. Okay, he pia waxa weeyaan marka yani bahalkan la yiraahdo madax kutiga oo lab. She pia waxa weeyaan madax kutiyad yani ama dubba yani dhadig. Man servant waa khadim. Maid servant waa khadimad. Grandfather waa awowga. Grandmother ayeyda. Okay, grandson waa inanka awowga u tahay. Granddaughter waa inanta ayeyda u tahay. Landlord waa qofka iska leh dhulka. Landlady-na waa gabadhii dhulka iska lahayd ama guriga. Dairyman waa qof caano iibiyo nin ah. Dairymaid-na waa gabadh caano iibisa. Okay, washerman waa yani kii wax meedayay. Washerwoman-na waa gabadhii wax meedaysay. Okay, wuxuu ku yiri markaas waxa kale oo jirta objects ashiyada without life bila nolosha. Objects ashiyada without life bila nolosha are in waxa la oranayaa inay ku jiraan neuter gender macna jinsi aan dhinacnaba raacsanayn. But sometimes laakiin marka qaarkood we speak of waxaynu uga hadalnaa them iyaga as if they were alive sidii wax nool oo kale. That is time macnaheedu waxa weeye they are regarded in loo arkayo as either male wax lab or female ama dadig. Lado fiirso masculine gender for objects denoting muujinaya strength quwwad ama xoog. Greatness ruux badnaan ama yani rawca ama yani cadama iyo violence qas etc. ay la mid ah. Wuxuu ku yiri masculine gender macna genderka lab ee for objects loo isticmaalo ashiyada denoting tusaya strength xooga. Greatness weynaanta. Violence ama qaska etc. ay la mid ah. Iyo feminine gender for object. Feminine gender waa jinsiga dhadig for loo isticmaalo objects ashiyada
denoting muujinaya beauty quruxda fertility yani waxa weeyaan مثلا oo kale dihinaanta carrada ama gabadha مثلا oo kale waxba dhalin oo kale fertility bay leedahay gentleness iyo مثلا oo kale raqiiq ama jileeca grace iyo raxmad etc iyo wixii lamid etc iyo wixii lamid ayaa markaa isu dhigmaya oo iska soo horjeeda waayahay aynu sii wad markaas waxa kamid ah مثلا oo kale sun maxaa ka soo horjeeda moon dayax summer waa xagaaga spring waa guga winter waa jilaalka modesty yani dayr oo kale ayuu ka jeedaa time waa waqti time waa waqti oo kale fame waa shuhra waxa shuhra ama caanimo ayaa la oranayaa lagu fiirsan markaas wuxuu ku yiri man iyo summer winter time death thunder war wind waa magacyada ashyaada muujinaya yani weynaan yani ama wax weyn qas ama cadama saas oo kale lagu fiirsan sun waxa weyn cadceeda summer waa xagaaga winter waa jilaalka time waa waqtiga death waa geerida thunder waa onkodka war dagaalka wind waa dabayl moon waa dayax spring waa guga modesty waa wax dhexdhexaad oo yani wanaagsan fame waa shuhra ama caanimo virtue waa wanaaga mercy raxmada charity waa sadaqo peace waa nabad liberty waa xorriyad earth waa dhulka ship waa yani markab railway train waa treenkii iyo motor car intaasna way iska soo horjeedaan waxay muujinayaan beauty qurux fertility yani dihinaan iyo carrad dihin oo kale iyo bilic bay muujinayaan kuwa kale waxay muujinayaan yani weynaan ama qas oo مثلا war oo kale wuxuu muujinayaa dagaal thunder oo kale onkod yani wuxuu muujinayaa sanqar weyn death waa yani waxay muujinaysaa violence death okay waayahay inta markaynu kaga gudubno intaas aynu gudub markaas sida loo isticmaalayo noun waa magaci iyo its uses isticmaalkiisii ka nounku lix meelood buu dhacaa ingiriisiga 6 meelood ayuu dhacaa 6 meelood mid bayn markaa sheegaynaa waa 6 meelood noun waa magaci its uses isticmaalkiisii marka number 1 noun as subject of the verb nounki waxa loo isticmaalay marka koowaad inuu faacil u yahay ama qabto u yahay of the verb ficilka مثلا maxaa kamida the boy came home gurigii weyn marka came waa imaatinkii boyna waa wiilkii Peter Nicola read wuxuu akhriyay the book he returned the book uu celiyay after reading bacda al-qiraa'ah markaas waa yani wuxuu noqday nounkii oo مثلا oo kale the boy iyo Peter iyo مثلا oo kale he oo intuba nounkii ama wakiilkiisii ya okay bal hada fiirso wuxuu noun waa magaci as object oo mafcuul u noqonaya of the verb falki George Nicola broke uu jabiyay the window daaqadii was direct object mafcuulkii toosa marka jabniinku wuxuu ku dhacay daaqadii he ended wuxuu kasbaday ama wuxuu xoogsaday samani qadar lacaga as direct object weeye he has gone to spend it wuu baxay to spend it so soo kharash gareeyo okay I gave George baan siiyay samani qadar lacaga George Nicola is waxa uu noqonayaa halkan the indirect object mafcuulka dadban and some money qadar lacaga markaynu sheegaynana waxay noqonaysaa direct object I gave him a pen also sidoo kale qalin baan siiyay I wa nounkii gave one siiyay him isaga a pen qalin marka penka ayaa direct object qofka personka himna waxay noqonaysaa indirect object bay noqonaysaa wuxuu number 3 waxa loo isticmaalayaa noun magaci waxa loo isticmaalayaa as complement inuu dhamaystiro of the subject faacilka macnihiisa in sentences of this type wadaha noocana the noun is magacada inta subject faacilka ku jira and the predicate ku macna maasi wala faacil wixii faacilka ka soo haray refer to waxay tilmaamayaan the same object shay isku mid ah Mary is my sister Mary waa walaashay marka sister iyo Mary waa isku mid she is a very good cook wada baaqadaadu fiican marka yani very good cook waxay dhamaystiraysaa she sisterna waxay dhamaystirtaa Mary and marka afraad nounka used oo loo isticmaalay for addressing someone inaad qof la hadlayso ama yani targetkaagu qof yahay oo qof soo jeedinayso gabadh Alice leedahay oo la hadlayay are you coming ma imanaysa Alice George George come here kale halkan okay marka George iyo Alice labaduba dadkii la address gareynay ama la hadlayay
marka shanaad wuxuu yiri noun magacii as complement wuxuu dhamaystirayaa macnaha of the verb ficilka he became wuxuu noqday captain of the team kabtanka kooxda ayuu noqday marka captain of the team he bay dhamaystiraysaa the general ninkii generalka ahaa turned traitor to the country turned wuxuu yani the general ninkii yani generalka ahaa turned traitor wuxuu isu bedelay ama khayn buu u bedelay to the country dalkii wuxuu yiri turned traitor khayn buu isu bedelay to the country macnaha dalkii oo dhan marka general okay waayahay wuxuu yiri the nouns magacyada italicized farta jiifta ku qoran yaryar are necessary waa daruuri to complete in a dhammaystiran the meaning macnaha of the verb ficilka marka lixaad nounka waxa loo isticmaalayaa as object of the preposition inuu prepositionka ka horeeya yani mafcuul yahay noun waa magacii as oo noqonaya object mafcuul noqonaya of the preposition macnaha waxa weeyaan sidan aynu u naqaan Carabiga oo kale jaariya majruurka the book is in the drawer khaanada ku jira marka in the drawer marka drawer waxa u tahay intaas mother hooyo is in the kitchen badbaxay ku jirtaa marka toddobaad noun waa magacii oo used loo isticmaalayo to show inuu muujiyo possession mulki ama lahaanshe or ama source yani il ay wax ka soo baxayaan etc wixii lamida hadaba wuxuu markaa George's girlfriend saaxibadii gabadhu saaxibada la George deena kuma isticmaalnay haskan waa u yimi Alice's dog Agi Alice is barking wiyaya loudly cor a mother's love is unselfish wuxuu a mother's love jacaylka aad hooyada jeclaataa is waxa uu noqonayaa unselfish midaan bakhaylnimo ku jirin ama damaacnimo ku jirin Shakespeare's plays riwaayada Shakespeare are waxay noqonayaan well known marka riwaayada Shakespeare ba iskale love hooya iskale dog Alice ba iskale saasoo kale weeye possession yani mulkiga ama lahaansha or source ama manbaca can also be expressed waxa lagu muujin karaa by using of inago of isticmaalna oo maxay oran karaa midalan the love of mother jacaylka hooyadu is unselfish waa mid daacadnimo oo yani aanay ku jirin bakhaylnimo the plays of Shakespeare riwaayada Shakespeare are well known waan the phrases midalan phraseyada ama wordwekaha of a mother and of Shakespeare express waxay muujinayaan possession mulki nowd waa mulaaxada ama fiiro gaara we form waxaynu ku sameeynaa possessives waxyaabaha la leeyahay of nouns ee magacyada by adding s inagu s ku darniya apostrophe to them yaka maxaa these boys books buugti inankani are on the table miiska yaalan but like when the noun marka magaca is plural u jamayaan andisu ku dhamaado in s we do not need uma baahnin an extra ss dheeraada oo maxaynu oranaa markaas this is a boys school this is tani the boys school macnaha waa iskuulkii inanka that is taasna the girls hostel waa hooygii ay seexanaysay inantaas okay waxa jira markaas there is another way waxa jira qaab kale waxa jira another way hab kale in which possessive nouns magacyada mulkiga sheegaya can be used loo isticmaali karo example tusaalahan maxaynu oran karnaa he's a friend of George's isagoo saaxiibkii George mar waxa weeye blaado fiirso the love of mother الحب يعني للأم ساسي نقونيسا تاني واحد وين he is a friend وصاحب of George مرنا لام الملكي بين نقونيسا he is a friend of George يعني هو صديق لجورج وكله ساسي نقونيسا he is a friend وصاحب of George's و double possession بلاقي double possession لها إن شاء الله بدأ I have just finished حتى عندما a play رواية of Shakespeare's وشكسبير's كله يهي here مركز هل كان the phrase word a friend of George's means معناها waxa weeye one of mid kamida George's friends asxaabta George a play of Shakespeare's riwaayad Shakespeare means معناها waxa weeye one of mid kamida the plays riwaayadaha one of mid kamida the plays riwaayadaha of Shakespeare we can use waxaan ku isticmaali karnaa this form habkan only kale when the second noun marka magaca labaad sida George Shakespeare etc is uu yahay a person qof we cannot use ma isticmaali karno a phrase word like a book of the library soo kale iyo a brick of the house soo kale wixii qayru aqli waxa ma yeeshaan weeyaan wixii qayru aqli waxa ma yeeshaan badanaaba okay
there is yet another way of using possessives there is waxaa jirta yet haddana another way dariiq kale of using oo loo isticmaalayo possessives waxyaabaha lahaanshaha we met him waxaanu kula kulannay at our uncle's gurigii adeerkayo marka yani uncle's house halkii laga odhanaa baa la xadfay the servant khaadimkii has gone wuxuu tegay to the chemist's dukaankii farmasi yani dhakhtarka oo kale ama farmasiilihii my son wiilkaygu studies wuxuu wax ka dhigtaa at St. Xavier's school iskuulka St. Xavier marka dhammaantood waxa ka dambeynaya school iyo shop iyo mesela oo kale house ayaa ka dambeynaya oo ay macnaha wakaaladaas ka taagan tahay waayahay wuxuu ku markaas the phrase-ka at your uncle's markay tahay means macnaheedu waxa weeye at our uncle's place of the residence waa halku adeerkay deganaayo kale hadii la dhaafto the chemist's means macnaheedu waxa weeye the chemist's shop dukaankiisii and at St. Xavier's means macnaheedu waxa weeye at St. Xavier's school or college kulliyada noocaasa we omid waynu ka tagnaa the noun magaca after the possessive lahaanshaha kadib because maxaa wacay ama maxaa yeelay they are understood waa mafhuum waa la iska fahmaya isticmaalkii magaca ayaa weli socda markaas use waxa lagu isticmaali karaa martubnaadka use waa isticmaalka of a noun magaca loo isticmaali karo in opposition inuu sii sharxo inuu ka kale sii sharxo maxaa la odhanayaa markaas George ninka George la yiraahdo oo ah the captain ninka captainka muntakhabka ka scored wuxuu dhaliyay 2 goals 2 goal marka George iyo the captain waa isku macno oo isku qof ay sheegayaan both George and the captain macnaha George iyo captainku are one waa mid and the same person waa isku qof the second noun magaca labaad marka merely kaliya explains wuxuu tafsiil ka bixinayaa the first noun kore George ninka la yiraahdo here the second noun magaca labaad oo the captain is waxa weeye the noun magaca in opposition sharaxa ku jira other examples tusaalooyinka la hadaan ku siiyo I met your sister walaasha baan arkay coma oo ah the doctoradii okay Mary gabadha la yiraahdo oo ah the great philosopher the great philosopher macnaha Marx ninkii oran jiray oo ah the great philosopher yani filosofkii weynaa was born in Germany buu ku dhashay waayahay intaas ayuu markaa nounkii iyo xaaladihiisii oo dhammaan ugu dhamaadeen waxaan markaa u gudbi doonaa hadii ay yiraahdo chapterka shanaad oo ah pronounska ama magacyaalka waxa loo yaqaan waa chapter 5 chapterka shanaad oo la yiraahdo pronouns magacyaallo marka pronouns waa magacyaalada and their action and their function iyo hawshooda wuxuu ku markaas pronoun maqasho is waxa weeye a word ereyga used loo isticmaala ama la dhigo in place maxalka ama meesha of a noun magaca we use waxaan isticmaali karnaa pronoun magacyaalka when we do not want markaynaan rabin to repeat inaynu soo celcelino a noun magac in a sentence jumlad or ama inaynu ku soo celino longer piece of writing qadcad yaro sheeka oo dheer oo kale مثلا George told me George was going to Bombay George wuxuu ii sheegay inuu Bombay u socday George told me he was going to Bombay keeba labada macaan hadii George miran meesha la dhigo ana George told me George was going to Bombay George wuxuu ii sheegay inuu Bombay qabanay isagu baa tagayay laakiin talabaad yani George labaad waxaad ku bedelan kartaa waxaad oran kartaa marka George told me wuxuu ii sheegay that he was going to Bombay inuu Bombay u socday the pronoun he مثلا isaga in the second sentence ee jumlada labaad helps us wuxuu inaga saacidayaa to afford inaynu ka baaqsano repetition ku noqnoqoshada of the noun George magaca George la yiraahdo George Nicholas is an intelligent boy waa inaan intelligent oo maskax badan George Nicholas studies with me waxbuu ila dhigtaa George lives wuxuu ku nool in the street next to mine yani wadada teeda ku xigta George and I aniga George marka often play together inta badan wada ciyaarnaa the repetition ku noqnoqoshada ama ku celcelinta of the noun magaca George la yiraahdo can be avoided waxa lagu manici karaa ama lagu joojin karaa by using inagoo isticmaalna pronoun magaca in its place magacyal isticmaalno marka we could say waxaan oran karaynaa ama dhihi karaynaa sideen oranaynaa markaas George Nicholas is an intelligent boy waa wiil maskax badan he studies waxbuu ila dhigtaa with me macayga he lives degan yahay in the street wadada next to mine tayda ku xigta he and I aniga isagu often inta badan play together
وان وضع عيارنا okay a pronoun مقعيالك can be used وحلا ديجي كرا لغو استعمال كرا in place of a noun phrase هل كان noun phrase كدقيو a noun clause هل كان noun clause كدقيو and a whole sentence جملة دردن أيو وكيل كان نقون كرا جملة دردن أيو مثل كرا أما جملة غير مفيدة يعني كان نقون كرا وكيل أما شبه الجملة أيو وكيل كان نقون كرا بل تسالهان وفيرسو okay وحكولي he talks in a funny way وحو أحد لا حبلا يابله I do not like it much علي because the pronoun it يعني كلمة ده it لا يرحتها replace واحد بتشد noun phrase كلا يرحتها a funny way we don't know مقرانينو where they have gone هالك يقبتين we don't really know دبهان مقرانينو it يعني كبيهان با the pronoun مركا it لا يرحتها replace واحد بدلها the clause يعني جملة غير مفيد كا يها where they have gone هالك يقبتين the rain is have failed روبك يعني وين الساقي والروب مدين it means famine the marka taa macnaheed waxa weeye abaarun baa jirta famine baa jirta the pronoun it kelmadda it la yiraahdo here halkan stands for waxay u taagantahay the sentence jumlada the rain is have failed the rain is roobkii oo dhami have failed ana wayna sheegeen oo roob ma daayo waa tahay marka waxaad eegi doontaa chantuska marka waxa ku the following table shahankan soo socda gives wuxuu ku siinayaa personal pronouns magacyaalada dadka u taagan in their different forms iyo qaababkooda kala duwan marka mesela singular waa mufrad plural waa jama singular waa mufrad plural jama baadoo fiirso markaas wuxuu ku first person ki muxuu noqonayaa waa yani mutakallimki damir mutakallimki I waa mufrad wina waa jama marka mafcuulka tahay mi bay noqonaysaa taasina marka mafcuulka tahay as bay noqonaysaa singular ka markay lahaansho sheegaysa my plural ki waa wax weeyaan our singular ki markay possessive pronoun tahay waa mine marka la waa ours second person ki oo you ya mar labaadkana you buu noqonayaa mar saddexaadka wuxuu noqonayaa you okay and jamicna you buu noqonayaa marka ay lahaansho sheegayso your bay noqonaysaa marka ay jamac tahay your bay noqonaysaa haddii ay mufrad tahay haddii ay jamac tahay labada goorba waa yours ee possessive pronoun ka okay third person ka oo ah kii laga hadlay ama dadkii laga hadlay qaybka ahaa he iyo she iyo it waa mufrad iyo one oo kale waxa jamacoodu noqonaya they mafcuulkoodu wuxuu noqonayaa him iyo her iyo it iyo one okay jamacooduna wuxuu noqonayaa them dhamaantood ama ones okay marka kale lahaansha ay sheegayaan his iyo her iyo itis iyo ones marka ay jamac yihiin their bay noqonayaan marka ay possessive pronoun yihiinna his iyo hers ayay noqonayaan markay jamac yihiinna theirs bay noqonayaan wuxuu note fiiro gaara the pronoun it is magacyaalka it's la yiraahdo is not used laguma isticmaalo as a possessive pronoun mid lahaansha sheegaya this fruit is it is incorrect macnaha ma oran karna ingiriisi ahaan waa qalad gabi ahaanba waa qalad yani completely ereygaasi ma yeelan karo lahaanshe waayahay marka xalqadeennii afraad ee buugga la yidhaha mega book of modern english grammar caawa halkaas inoo joogaya oo macallin ismaaciil xirsi oo idinku dhaafeeya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu iyo xalqadeena shanaad haddii eebe raalli ka noqdo